maayirka degmada Burco Maxamed Muraad oo maanta ka hadlayay cisbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay in xukuumadda Soomaaliland ogolaatay in magaalada Hargeysa laga soo qaado dad u dhintay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 oo lagu aasay deegaano hoos yimaada gobolka Togdheer. Wuxuu sheegay maayir Muraad in maanta lafteeda la soo wado qof u dhintay xanuunkaasi oo la rabo in lagu aaso magaalada Burco, waxaana ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland in arrinkaasi ay wax ka qabato maadaama qayb weyn ay ka qaadanayso faafidda xanuunka. مشاكل كان يمكن هايستايو نين هوري oo magaalada la keenay oo xanuunkaasi dilay oo Hargeysa laga soo qaaday oo tuulooyinkan lagu haasina waa jira haddana qaar baa la soo wadaa baa la leeyahay waxaanu leenahay taana sax ma aha meesha uu ku dhintay qofka marka loo qaaday Hargeysa hadduu ku dhinto waa in dawladdu ay mamnuucdo in dib loo soo qaado oo inta uu soo socdaba ee fayraskina waa la socdo dadkana looga taahilmay marka halka la soo dhigay la adeerka ama abaha waa kan waa meed way isaga imanay warkaana waxaan isleey meedka maanta soo soo iyo kii hore mid saddexaad oo ka dambeeyay uu jirin rag Hargeysa joogan la hadlay ee hawsha ka shaqeey meed dambe in loo soo fasaxay oo Burco inta laga qaaday dadna Hargeysa ku dhintay in Burco dib loogu soo qaado in loo soo fasaxin markaana waa soo jeeday halkiisa lagu aaso naftiisa sharcan waxisan ma banaanaba qofku meesha ku dhintay waa lagu aaso. Mahad Ali Goodir, Star TV, Burco.